wasaaradda iyo madaxda ciidanka nabadgelyada Soomaaliyeed oo uu hormuud u yahay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed waalidiinta ardayda howlwadeennada iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee kale ay nala socotaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ma iloobin xildhibaankaygii xildhibaanka wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta xildhibaano badan ay leeyihiin laakiin xildhibaan maxamed cusmaan naastaro kaliya ma aha inuu isagu wasaaradda waxbarashada ka tirsanay laakiin aabihiis oo aan saaxiibayn allaha u naxariistay ayaa wasaaradda waxbarashada ka tirsanay markii intii uu noolaay xildhibaanku weligiis waxaanan wasaaradda waxbarashada ka soo gelin noloshiisa ma cunin ma ogi maalmahan hadda wax uu soo gaaray ma garanayo marka koobaad waxaan jeclahay inaan u hambaliyeeyo ardayda Soomaaliyeed ee ku guuleysatay inay galaan imtixaanka fasalka 12aad ee dugsiga sare kuwii maanta la shaaciyay iyo kuwa maalmo ka hor la shaaciyay dhammaantood waxa aan leenahay waa in soo hoyatay inaad ku guuleysataan in marxalad ka mid ah noloshiina aad meel soo gaarsiisaan laakiin inay jiraan marxalado kale ee sii xiga ee inooga baahan dhammaanteen inaanu ka fikirno sidaan oo kaleeto guul aada uga gaari lahaydaan waxaan u hambaliyeynayaa ardayda gashay kaalimaha koobaad ee 10 arday ee la sheegay ee la shaaciyey magacyadooda waxaan u hambaliyeynayaa gabdhaha 6 ah ee 10kaas ka mid ah taasoo macnaheedu uu yahay kartida iyo dadnimada gabdhaheenu ay leeyihiin oo meel kasta oo waxbarasho lagu hayo markaan tagaba aan arka gabdhuhu inay kaga wanaagsan yihiin wiilasha waa wax aada iyo aada u weyn oo qiimo badan oo la rabo inaan xisaabteenna ku darno haddii ay jirtay mar ka mid ah mararka qaar bulshadeena inaan isu sheegi jirnay inaanay gabdhuhu waxba baran karin ama aanay macno lahayn waxaan rajaynayaa inay tusaale weyn ay u noqdaan qoyska intiisa kale wiilashii waxaa la ii sheegay inay guryaha ka maqan yihiin habeenkii sooda ahaan maxaan ku idhaahdaa kubadda ma cayaaraan ogow waa fiirsadaan bas yani hadday cayaaraan wax badan bay maskaxdooda iyo jirkooda iyo ka tari lahayd laakiin waa fiirsadaan way ku mashquulsan yihiin gabdhuhu waa ku yaryihiin taageerayaasha Arsenal iyo Manchester iyo Premier League iyo waxaas iyo waa ku yaryihiin runtii waxaan jeclahay halkan uga mahadceliyo anigu imtixaanka kama soo shaqeynay iyo wasiir ku-xigeenka iyo laakiin waxaa ka soo shaqeeyay wasiirkeenii oo ay ahayd maanta inuu isagu iclaamiyey imtixaanka iyo bahdii waxbarashada iyo dhammaan intii ka soo shaqaysay runtii aada iyo aada ayaan ugu mahadcelinayaa u bogaadinayaa saaxiibkay wasiir Cabdullaahi Carab iyo saaxiibadiisii kale ee wasiir dowlihii iyo wasiir ku-xigeenkii la shaqeyn jiray anigii iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dowlaha in ka yar 70 saacadood ayaan wasaaradda joognaa shaqadanna waxay soo socotay oo guddiga markii ugu horeysay wasiirka uu magacaabay waxay ahayd bishii Janaayo 19keedii 2022 waa mar laga joogay 8 bilood marka shaqadaas ay soo wadeen dhibaatada badan lahayd ee culeyska badan lahayd waxaan ilaahay ka rajaynayaa subxaanahu wa tacaala in miro wanaagsan oo ay ku farxaan inay helaan annagana waan uga abaalhaynaa imtixaanku muxuu yahay su-aasha koowaad waa midaas meel la isku ciqaabo oo dadka lagu kala reebo oo maskaxdooda lagu dhafriyo miyaha mise macno kaluu leeyahay imtixaanku waa qiimeyn waxaa la qiimeynayaa marka cid kastuu qiimeyn u yahay marka wuxuu qiimeyn u yahay ardayga wuxuu qiimeyn u yahay waalidkiis
wuxuu qiimeyn u yahay dugsiga, wuxuu qiimeyn u yahay wasaaradda, wuxuu qiimeyn u yahay qaranka Soomaaliyeed uu qiimeyn u yahay. marka sida ardaygu walwal uu imtixaanka ugu hayo ayay tahay intaas oo dhanna inuu imtixaan ugu hayo uu walwal ugu hayo. adduunyadu waxay ina weydiinaysaa hadday rabto qarankeena inay qiimeyso imise arday ayaa imtixaankooda gashay, imtixaankooda see loo qaadaa. ardayga ma aha iyo hebel keliya ma aha, yacni qarankan dhisan imtixaankiisa sidee loo qaadaa, dadkiisa sidee loo qiimeeyaa. marka markii la arkay imtixaankeena siduu u egyahay iyo habka aan u maamulno iyo sida aan u dhaqanno, qiimaha aan leenahay intaasuu ku eg. haddii ay tahay tii uu inooga sheekeynayay professor maxamed cabdulqaadir iyo meeshii aan joognay iyo meesha hadda aan joogno isku mid ma ah. marka meeshaas maalinta aan joognay qiimaheena meeshaasuu la ekay, maantana meesha aan joogno qiimaheena meeshaasuu la egay. marka waalidiinta gaar ahaan oo xil gaara uu saaran yahay waxaan jeclahay inay fahmaan in imtixaanku inuu hufnaado oo uu wanaagsanaado oo uu dhowrsanaado oo maxaanku idhaahdaa nidaamka iyo waxa la isku ogyahay la ilaaliyo inay tahay waajib iyaga saaran. waxaan runtii halkan aada uga mahad celinayaa ciidanka booliska Soomaaliyeed. maanta waxaan u martiqaadnay taliyaha, waxaa weeye horta inaad ogaataan ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo bahda waxbarashadu inay walaalo yihiin. haddii 10 askari ay soo gashay iskuulka maxaa dadka maskaxdooda ku soo dhacaya? taliye dadka maskaxdooda waxaa ku soo dhacaya iskuulka in tuuga laga baarayo ama mooryaan laga baarayo ama dambiilayaal la soo qabanayo. waxaan rabnaa dhaqankaas inuu bedelo. booliisku waa saaxiibka bulshada. ciidamadaadu markay iskuulka yimaadaan inay dadka wada farxaan oo ay dareemaan inay ammaan yihiin oo ay dareemaan inay xaaladoodu fiican tahay oo saraakiisha iyo ciidamada intaad u dirto iskuullada inay ardayda la hadlaan oo taabuurka markay joogaan la hadlaan, sida ay saaxiib u yihiin u sheegaan, anshaxa wanaagsan ay u sheegaan. ardaydu inaanay kala cararin markay askari arkaan ay ogaadaan maalintaas inay tahay maalintay ugu ammaan badan yihiin, saaxiibkoodana uu yahay ciidanka inuu yahay. ciidankana macallimiin badanaa ku jirto. taliyow mararka qaar ee fasal uu bannaan yahay taliyaha saldhigga oo mutacalimiin ah iyo dadka la joogo inta iskuulka tagaan xiisad ha siiyaan oo ha u dhigeen. dadka booliisku waa ciidankeenna, waa dadkeenna, waa walaalaheen. booliiska shacabku ka tirsan yahay, shacabkuuna saaxiib leeyahay. sidaa daraaddeed waxaan aada iyo aada uga mahad celinayaa dadaalkii weynaay tirada intaa la eg ee lainoo sheegay ee 1300 oo ciidankeena ka tirsan ay habeen iyo maalin ka shaqaynayeen ilaalinta nabadgelinta iyo habsami u socodka imtixaanka. maxaa yeelay waa muuqaalkii qarankeena waxa ay ilaalinayeen. waxaan rabaa inaan la dardaarmo waalidka Soomaaliyeed, ardayda ku guuleysatay imtixaanka iyo macallimiinta jaamacadahaba inay ardayda ka kaalmeeyaan doorashada waxbarashada, inay ka kaalmeeyaan. ardaygu mararka qaar ma garanayo ama garaadkiisu ma gaarsiisana iyo wacyigiisa waxa uu rabo inuu barto iyo waxa ay waxtar leeyihiin. wuxuu iska eegayaa in mid daris ay yihiin xaguu galay, wuxuu iska eegayaa mid oo shaqo fiican haysto oo magaalada joogo oo laga yaabo qooto shaqada inuu ku tagay inuu yaraa kaas jaamacadaasuu ka soo baxay ama takhasuskaas soo bartay, anigana haddaan barto asagoo kalaa noqonaya inuu yidhaahdaa laga yaabaa. kadibna waxbarashada markii la galo uu ku fashilo. marka arrinta ku saabsan in takhasusaadka qaar la necab yahay kuwa qaar la jecel yahay mar qaar kuma salaysna xaqiiqadeena dhabta ah kuma salaysna. marka jaamacadaha mas-uuliyiintooda, macallimiintooda, waalidiinta
in wacyigelin xooggan laga sameeyo oo weliba inta badan jaamacaduhu ay ku dadaalaan in semesterka foundationka ah uu noqdo semester ardaydooda u wada furan tahay kadib ardaygu wixii uu arko inay munaasab u tahay oy wanaag u tahay uu galo jaamacadda ummadda soomaaliyeed iyo jaamacado kale iyo hay-ado iyo dowlado ila soo xiriirayba waxa ay noo ballan qaadeen inayna siinayaan deeq waxbarasho deeqda waxbarasho dadka ugu mudan ee ugu horeeya ee heli doono waa 10kii arday ee halkan lagu soo bandhigay iyo kuwa ku soo xiga insha Allah tacaala haddii ilaahay yiraahdo waxaan aad ugu boorinayaa ganacsatada Soomaaliyeed hay-adaha iyo dadka suuragalka ay u tahayba iyo sharikadahaba inay ku daydaan Hormuud Foundation oo dadka Soomaaliyeed waxbarashadiisa ay qayb ka qaataan gaar ahaan waxbarashada dadka baahiyaha gaarka ah qabo oo aad iyo aad u soo kordhayso una soo weynaanayso si gaar ah waxaan ugu sii mahadcelinayaa guddiga imtixaanka ka shaqeeyay oo liiskooda la ii keenay oo aan hadda magacyadooda wada sheegi karin oo madax ka ahaa agaasime Axmed Daahir Maxamed asaga iyo tiimkii la shaqeeyayba waxaan leenahay shaqo wanaagsan ayaad soo qabateen abaalmarinteedana waad heli doontaan insha Allah tacaala haddii ilaahay yiraahdo war saxaafadeeda soo bixi doono caddayn doono waxa imtixaanku uu yahay iyo waxa laga soo maray iyo natiijooyinka iyo go'aanada ay wasaaradda ka gaartay waxaan rabnaa inaan isu sheegno sida dhabta ah dadaal intaa la eg baa lagu soo bixiyey qof jeclaysi iyo iskuul jeclaysi iyo deegaan jeclaysi toona si lagu samayn kara ma jirto xataa qof jecel hadduu jiro systemka la adeegsaday fursad ma siinin taas marka qofkii qanci waaye oo ku qanci waaye asaga wuxuu rabo jid loo maro ayaa jirto jidkaasuu soo qaadaya insha Allah tacaala haddii ilaahay yiraahdo laakiin haddaad jidka garan wayso dacwad adiga oo qabo haddaad dowgi garan wayso ogoobay dacaayadii doodi kuma noqoto waxba kuu tarmaysa wasaaradda saas waaye guddiga saas waaye guddoonka saas waaye wax ay dacaayad kuu taraysa lama arko waxaan rabaa waalidka dareenka ka qabo in ardaydoodu ay saan inay ka wanaagsanaadaan ay ahayd inay gurigoodii ardaydooda ku laabtaan inaanay macallimiintii iyo imtixaankii iyo maxaan ku iraahdaa wasaaraddii iyo waqtiga ooga luminin cabasho aanan macno weyn keenaynin waqtiga inaanay ooga lumin laakiin wixii cabasho ee sax ah diyaar ayaa loo yahay طبعا war-saxaafadeedkay ku jiri doontaa waxaa jira arday la hakiyey natiijada imtixaankooda si loola xisaabtamo iyaga iyo waalidkood maadaama ay hareer mareen habkii iyo nidaamkii imtixaanku uu lahay jidkaas jid aan ahayn oo furan lama arko ceeb bay ku tahay waalidiinta ceeb bay ku tahay macallimiinta ceeb bay ku tahay dugsiyada in dad yar oo fara ku tiris ah ay isku dayaan inay nidaamkeena burburiyaan kadibna laga indhalaabo oo la yiraahdo bal ha iska socdeeno waana dhaafayaane waa naga tagayaa 33,000 oo arday in ka badan iyo waalidiintooda iyo macallimiintooda waxay u soo jeedeen waa diideen guddiga waxa ka shaqeynayay in dad fara ku tiris ah waxay doonaan ay ka sameeyaan way diideen marka taana inaad xisaabta aad ku dartaan cidii cabasho qabtana jidkaas inay marto waxaan aad iyo aad mar kale ugu hambaleynayaa ardaydii waalidiintii shaqaalihii inta ka shaqeeyay saacadan laga bilaabana qof kasta rool numberkiisii wuu haystaa waa geli karaa beejka wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta natiijada imtixaankana waa arki karaa kadibna xafladihii iyo munaasabadihii iyo maxaan ku iraahdaa inaan la iloobin
in macallimiintii iyo loo yeelo ugu dambeyntii imtixaanka warbixintiisa aad u ballaaranta saacado dheer iyo baan maalmo dhawa dhegaysanay waxaa jira dugsiyo ardaydooda oo dhanba ay dhaceen waa dugsiyo yar waxaa jira dugsiyo ardayda badankeed ay dhaceen waxaasi suuragal ma ahan oo ardayda Soomaaliyeed dad saas u wada xun oo meel lagu soo xareeyo ma jirto laakiin systemka dugsiga wax ka khaldan yahay waa dabagaleynaa waa la xisaabtamaynaa wixii wax ka qabashadooda soo kobcin karana waan soo kobcinaynaa wixii aanu aragnay in la karantiilana dhakhaatiirana la joogto waa la karantiilaa aad iyo aad u mahadsantihiin hambalyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته